maanta aniga farxad weyn bay noo tahay ka degma laascaanood ahaan in maanta lagu qabto taliska aagga bari ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ku yaala caasimadda laascaanood ee gobolka Sool. waa markii koowaad ee lagu qabto xuska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland si heer qaran ah. waan bogaadinayaa waan hambalyeeynaya waxaan kaloo doonayaa inaan halkan ka cadeeyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland Soomaalidu waxay ku mahmaada hadii lagu sheelana waa la sheegaa hadii lagu sheegana waa la sheelaa ee maanta awoodiisa iyo halka uu marayo la wada og yahay inay salka u dhigeen saraakiil iyo janano ka soo jeeda deegaankan taasina waxa ilaahay loo mahadnaqo oo aad wada garanaysaan hogaamiyayaashii ama taliyayaashii soo hogaamiyay ciidankan ee beeska u soo dhigay ee salka ka soo bilaabay haday tahay Allahu naxariistay Janaan Cabdisamed Cali Shire Ibrahim Caydiid Rabdable iyo dhammaan taliyayaashii soo maray iyadoo aan maanta oo kala aanay ahayn oo ay curdin tahay oo ay yabyab tahay aad iyo aad bay arrintaasina farxad noogu tahay hadaan nahay ka deegaanka waxaan u hambaleynayaa dhammaan taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiishiisa sida xilkasnimada leh ay u hogaaminayaan ciidanka waxaan kaloo doonayaa inaan halkan ka bogaadiyo ciidanka qaranka qaybtiisa deegaanka oo ayaamihii ugu dambeeyay ama 3 toddobaad ee ugu dambeeyay ku hayay nabadgelyada magaalada laascaanood gacanta sida qiimaha iyo qaayaha leh ee ay saraakiishaasi u maamuleen nabadgelyada ama ay u xasiliyeen ama qaybta libaax looga qaateen saraakiishana waan bogaadinayaa taliyaha ciidanka qaranka iyo madaxweynahana waxaan ka codsanayaa in saraakiisha iyo ciidankaaba lagu abaalmariyo sida waajib kale ay u guteen waajibkooda shaqo anaan hadalka badinayn xafladda anigu waan inoo furayay maamuuskii degmadaan qaadanayay wixii kale arrimaha ciidanka waxaan uga baxayaa cidda ay qusaysay saraakiisha ciidanka aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin ilaahay waxaynu ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa guul iyo badhaadhe in ilaahay nagu gaadhsiiyo waxalaala wixii xaalada ee jirana ilaahay is-afgarad iyo nabadgelyo inoogu dhameeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.